taageerayaasha xisbiga kulmiye degmada xudun oo banaanbaxan hore loo arag saaka ku sameeyay degmada xudun isla mar ahaantaana socod dheer ku soo maray wadooyinka degmada xudun ee gobolka Sool taageerayaasha xisbi xaafidka kulmiye oo ku lebisan calanka xisbiga kulmiye kuna dhawaaqaya halku dhagyo ay ka mid yihiin mar kale u codee socod dheer kadib waxay isugu soo biyo shubteen aqalka dawladda hoose ee degmada xudun halkaas oo ay ku soo bandhigeen ciyaarta caanka ah ee loo yaqaano jaandheerta ee ceeri gaabo waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada xudun odayaal dhalinyaro haween ana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan maanta waxaanu diraynaa fariimaha cad baanu diraynaa haddii aanu nahay degmada xudun haddii aanu nahay odayaasha degmada xudun odayaasha degmada xudun iyo magaca golaha dhexe ee xisbiga kulmiye aniga ku hadlaya waxaanu diraynaa biixi waxaanu leenahay soo dhowaada dadka iyo dalkuba waa kulmiye waxaanu leenahay soo dhowaada mar labaad xudun laba maahee waa mid xudun waa kulmiye kala tala maahe waa isku talo laba xusbi kala geli maysa hal xusbi bay gelaysaa waxay gelaysaa xusbiga kulmiye laba nin oo musharaxa wada dooran maysa mid bay dooranaysaa waxay dooranaysaa mudane muuse biixi waxaanu leenahay hal la soo dhowaado walaalayaal laba iyo siddeetan maa jirin barigii rumaantii bay hoofay afar heer baynu u gallay afartii reer mid wuxuu ahaa habariyo nama jeerteen midna wuxuu habarawa midna habar jeclu ahaa laba baaba baynu kala soo noqonay labadii caanaynu kala soo noqonay dhulbaanta waxaan ku leeyahay abaarkii halla mariyo kulmiye muuse buuxi cabdisoo marido waa sidaa weeye sidaasay isku oyin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت لي. قدر ونقص ويننا وبلدي تجمل حضن حسبك كلمية. waxaan uga soo laataa sanadka doorashada timi marka la isu soo baxo safaf dheer la wada galo zawdka iyo codbixintana lagu rido sanduuqyada horta kulmiye sarreynta leh cabdilaahi maxamed kaarshe cabdilaahi asad TV-ga qaranka Soomaaliland xudun